السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان مبارك داوديال مeel kasta aad joogtaan isoo walba muuqaalka lidii soo gaarayo waxa la hawada ka leenahay Ramadan Kareem. daawadayaal muuqaalkeena maanta waxaynu ku eegi doonaa ramadaanku muxuu yahay, sidoo kale waxaan isla eegi doonaa maxaa ka dhigay bishan barakeysan ee ramadaan bil gaar ah. waxaan daawadayaal dul istaagi doonaa inta programkan aan ku guda jirno macnaha ereyga ramadaan luqad ahaan. ramadaanku muxuu yahay, aragtida culimada ayaan eegi doonaa daawadayaal hadduu Allah awoodda leh raali ka noqdo. qodobada kale ee haddii Allah awoodda leh raali ka noqdo inta muuqaalkan aan ku guda jirno aan eegi doono waxaa ka mid ah ramadaanka iyo sidoo kale tarbiyada nafta. waxaan kaloo eegi doonaa xigmadaha ugu waaweyn ee ramadaanka iyo sidoo kale a'imadii hore waxyaabaha ay ka yiraahdeen. soo dhawaada saaxiibayaal, mawduucan waxa uu ka mid yahay borograamo gaara oo lagu talagalnay bisha barakeysan ee ramadaan. maalin kasta oo ka mida bishan ramadaan waxaad daawad doontaan oo aan idiin soo baahin doonaa muuqaal xiiso badan oo ku taxalluqa ahmiyadda ramadaanka iyo sida ugu wanaagsan ee aan uga faa'iideysan karno. mawduuceena maanta wuxuu daaran yahay muxuu yahay ramadaanku, sidoo kale maxaa ka dhigay bil gaar ah. ramadaanku waa bil ka mid a bilaha sanadka hijriga, waana bil markaa alla subxaanahu watacaala uu u dooray cibaado gaar ah, dembi dhaaf iyo sidoo kale toosinta qalbiyada mu'miniinta. culimada islaamku waxay isku raaceen in ramadaanku uusan ahayn bil gaajo oo keliya, balse uu yahay bil markaa tarbiyo, bil isbedel, bil markaa ku dhawaasho alla subxaanahu watacaala. macnaha ereyga ramadaanka luqad ahaan haddii aynu eegno, culimada luqadda carabiga waxay sheegeen in ereyga markaa ramadaan uu ka yimid ramaad oo micnihiisu uu yahay kuleel daran ama gubasho. al-imaam al-fayrus al-baadi Allah ka raali noqdee waxa uu yiri ramadaan waxaa sidaas loogu bixiyey maxaa yeelay waxa uu gubaa dembiyadu sida dabka uu u gubo xaabada oo kale. sidaas daraadeed ramadaan luqad ahaan waa bil markaa dembiyada la gubo, qalbiyadana markaa la nadiifiyo. ramadaan muxuu yahay, aragtida culimada haddii aynu eegno, imaam ibnu rajab al-xambali Allah ka raali noqday waxa uu yiri ramadaanku waa bil markaa qalbiyadu la nadiifiyo, naftana markaa la edbiyo, sidoo kalena ku dhawaasho rabbigeen markaa ay u sugnaatay. maxay culimadu markaa ka yiraahdeen macnaha ramadaan? iyana haddii aynu eegno, ibnu rajab al-xambali Allah ka raali noqday waxa uu yiri ramadaanku waa bil markaa qalbiga laga nadiifiyo wax kasta oo alla looga fogaanayo. al-xasan al-basri Allah ka raali noqday asaguna waxa uu yiri ramadaanku waa fursad cibaado oo aan la helin mar kale. ibnu al-qayyim Allah ka raali noqdee isagana waxa uu ramadaanku ku sifeeyey ramadaanku waa dugsi markaa lagu tababarto, laguna barto ayuu yiri sabar, taqwo iyo sidoo kale adeecid. ramadaanku waa bil markaa la waajibiyey, soonku waa bil la dejiyey, qur-aanku waa bil markaa la furo albaabada jannada, waa bil la xiro albaabada naarta, waa bil shayaadiintu sidoo kale la xiro. sidaa daraadeed ramadaanku waa fursad dahabi ah oo dib u dhalasho ruuxeed. maxaa ramadaanku ka dhigayo bil gaar ah? kow, qur-aanka kariimka ayaa lagu soo dejiyey. alla subxaanahu watacaala waxa uu yiri bisha ramadaan waa tan lagu soo dejiyey qur-aanka hanuunka u ah dadka, sida rabbi subxaanahu watacaala uu ku sheegay suuratu al-baqara aayadda 158. imaam shaafici Allah ka raali noqdee waxa uu yiri
qofka qur-aanka kariimka la saaxiiba bisha ramadaan qalbigiisu waxa uu noolaanayaa sanadka oo dhan. 2 soonku waa cibaado gaar ah. nabigeena maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee waxa uu yiri eebbe subxaanahu wa tacaala ayaa yiri soonku aniga ayaa iska leh, aniga ayaa la abaal marinaya, sida markaa lagu sheegay xadiisul qudsi, xadiiska oo markaa ay wariyeen Bukhari iyo Muslim. hagaag laylatul qadriga habeenka ka khayrka badan kun bilood. Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yiri habeenka qadarka waxa uu ka khayr badan yahay kun bilood, sida markaa Allah subxaanahu wa tacaala uu ku sheegay suuratu al-qadr aayadda markaa 3. ibnu kathiir Allah ka raali noqdee waxa uu yiri qofka ka faa'iideysta laylatul qadriga waxa uu helay khayr cimri dhan. ramadaanku waa bil cafis iyo sidoo kale naxariis. nabigeena maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee waxa uu yiri qofkii ramadaanka u sooma iimaan iyo sidoo kale ajir doon, dembiyadiisii hore waa loo dhaafaa, sida markaa ay wariyeen Bukhari iyo Muslim. Al-Hasan al-Basri Allah ka raali noqdee waxa uu yiri ramadaanku waxaa la cafiyaa kuwa si dhab ah markaa u toobad keena, balse kuwa caado u ah dembiyadu waa la dhaafiyaa fursadu. haddii aan eegno ramadaanka iyo sidoo kale tarbiyada naftana, imaam ibnu qayyim Allah ka raali noqdee waxa uu yiri soonku waxa uu jabiyaa damaca nafta, waxa uu xoog siiyaa iimaanka. ramadaanku waxa uu na baraa sabar, waxa uu kobciyaa taqwo, waxa uu yareeyaa damaca adduunka, sidoo kalena waxa uu kordhiyaa akhlaaqda wanaagsan. haddii aan eegno xigmadaha ugu waaweyn ee ramadaanka iyo sidoo kale waxyaabaha a'imadii hore ay ka yiraahdeen ramadaanku, al-imaam Maalik Allah ka raali noqdee waxa uu yiri ramadaanku ma ahan bil hadal iyo sidoo kale muran ee waa bil cibaado iyo aamusnaan. al-imaam Axmed ibnu Xambal Allah ka raali noqdee isaguna waxa uu yiri haddii ramadaanku kaa dhammaado adigoo aan isbedelin waad khasaartay. intaas ayaan kusoo koobaynaa brogaraamkeenii maanta oo ka mid ahaa silsilada muuqaalo ah oo ku bixi doona qaab maqal cod ah, taasi oo aan ugu talagalnay in daawadayaasheennu ay wax badan ay uga faa'iideystaan ahmiyadda bishan barakeysan ee ramadaan iyo sidoo kale faa'iidooyinka ay inoo leedahay. maalin kasta oo ka mid ah bishan barakeysan ee ramadaan waxaad daawan doontaan muuqaal gaar ah oo ku sumadeysan maalintaas, xambaarsanna darsi muhiim ah oo aad wax badan ka faa'iidi doontaan hadduu Allah uu dil raali ka noqdo. brogaraamadeenu waxay diiradda saari doonaan ramadaanka iyo sida ugu habboon ee aan uga faa'iideysan karno. fadlan sheer garee muuqaalkeena si saaxiibo badan marka ay uga faa'iideystaan, sidoo kale laag iloo saar si muuqaalku uu u baaho. haddii aad nala soo gaartay ilaa iyo dhammaadka muuqaalkeena waa ku mahadsan tahay daawashadaada.